Hi guys, assalaamu calaykum. Waan gacan Fatix Ibrahim. Halka maanta waxaan ku eegi doonaa qaabka ugu fudud ee maxay ahayd word-kaaga ama maxay ahayd mawduucyada kugu qoran word-ka loogu bedelo PDF ama PDF aan gudbin karaysid adigoo isticmaalaya word-ka laftarkiisa macnaha computer-kaaga offline ahaan. Kasoo jeedin internet ku furan yahay laakiin internet isticmaal maayo. Waxaan isticmaalaya word-ka gudihiisa. Saddex step baan eegi doonaa saddex qaab ugu horeeya waxaan tagi doonaa file save as ba ku dhufan doontaa kadibna browse ba oran doontaa okay kadibna waxaa oran doontaa xagan ku jirta ama maxay ahayd tagi doontaa halka igu qoran tahay let's say anigu desktop-kan dooranaya desktop-kan doortay kadibna waxaan ku qori doonaa word so marka hore igu jiro waan ku bedelayaa okay kadibna waxaan dooranayaa xaga igu qoran tahay PDF okay xagan options bay yaala aan doonayaan ka bedelo ma current page-ka ama page-ka kaliya macnaheedu page-ka taagantii marka aad doonaysid inaad bedesho shayga ayaa current page-ka mise pages baa ku jira xagana ka dooranaysa ma shan mise labo inta doonaysid mise waxa aad doonaysaa wada dhamaan option-kana wada leedahay okay so marka okay baan imika oranayaa kadibna waxaan oranayaa save ida xagana option-ka kugu jira inaad password ku xidho kale waxa let's say waxaan oran doonaa save easy wuu jiraa wuu oranaya min kugu bedela yes baan oranaya igu bedel okay kadibna waa la igu bedelayaa kadib xagga baan ku dhufanaya oo soo furi doonaa okay marka way step-kii kooban sameeyay marka waxaad arkaysaa in loo bedelay word-kan in lagu bedelay PDF waa qayb kamid ah qaabka aad ugu bedeli karaysid okay aan islaagno step-ka labaad okay waxaan eegi doonaa step-ka labaad ama qaabka labaad ugu bedeli karayso kadib waxaan tagi doonaa file baan tagi doonaa isla sidii kadib waxaan ku dhufanaa halka ku qoran tahay export kadibna xagga waxaa inoo yaala option ku qoran tahay create PDF okay kadib waxaan ku dhufanaa option kaas aan ku dhufan doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa ff baan ku qornay PDF xagan ku save gareynayna eegi doonaa desktop baan tagi doonaa kadibna waxaan ku dhufanaa publish okay so basically publish baan ku dhufto wuu soo bixi doonaa desktop baan tagi doonaa kadibna waxaan ku dhufan doonaa PDF ama shaygan bedelay kadibna aad arkaysaa marka qaabkaasna waxa weeye qaabka labaad ee loogu bedelo maxay tahay PDF-ka let's say labada baan soo wada xidho all close all tabs baan oranayaa samar labaad ku tuso kadib waxaan tagayaa word-kii waan ku noqonayaa kadibna waxaan tagayaa halkii ku qoran tahay maxay ahayd save as ma print baan ku dhufanayaa print baan ku dhufto xagga waxaan ka dooranayaa in uu yahay Microsoft Print PDF ahaan oo daabaco okay PDF baan ku dhufanayaa kadibna xagga hal page bay yaala waa hal page kadibna waxaan oranayaa ku dhufo kadibna waxaan ku qori doonaa let's say sagana hh baan ama gg baan ku qoray kadib waxaan tagayaa desktop-ka so desktop-ka markaan tago PDF to document weeye kadibna save baan oranaya okay so basically waxaan halkan soo galaya gg okay sida kasi maxay soo baxay in maxay ahayd oo gg-gana soo baxay okay so waxaad arkataa saddexdaaba in aan u bedelay saddex qaab oo kala duwan okay so marka haddii casharkaad ka heshay faa'iido ku noqday oo aad ka faa'iiday waxaan ka codsanayaa channelka soo bita subscribe saato asxaabta la wadaagto dhammaantiina waa mahadsantihiin casharkan ku kulmi doona waniga Fatix Ibrahim oo sidaad kaga tagi doona dhammaantiin waa mahadsantihiin okay